waxa uu ka go'ay labada gacmood oo ka mid ah lixaadka aadanaha kuwooda ugu muhiimsan. La'aanta xubnahaasi kama aysan niyad jabin inuu dadaal dheer u galo dhanka waxbarashada oo uu ka libin keenay. Wuxuu maanta u fariistay imtixaankii ugu dambeeyay ee jaamacadda kadib muddo 4 sano ah oo soo halgamayay. Qofkan kuu sheegay waa Cabdirasaaq Warsame oo yaraantiisii ku gacmo beelay dhacday sabab u ahayd eedadiis. anoo yar xarig lagu xiray waay ka bacdina waxa ay u xirtay eeda aabalaltay wiilkeeda ay u xiray ka bacdi ani markaan koray adiga xarig lagu xiray waxa la sameeyay in maartay sheeg xarig nerfi ay kala xiro marka wiilkeeda iga xiray ka bacdi markii dambe nerfi ay dhiigi kala xirmay ka bacdina waa gacanta waxay noqotay in la jaro. Ma uusan isdhiibin waxa uu ku dhiiraday inuu nafta la halgamo. Maanta wuxuu soo gaaray heer uu in muddo ku taamayay. inkastoo qabashada qalinka iyo qorista aysan u fududeen haddana wuu la qabsaday. haddaba xagee hayaankiisa waxbarashada ka soo bilaabay Cabdirasaaq? iskuul waxaan soo dhigay jiray Banaadir Primary Secondary School oo jaamacadda Mashaariic Qaliya. iskuulkaas aan boodi ahaan u galay qadii muddo waxaan ku jiray 9 sano ah ka bacdi jaamacadda 4 sano aan soo aaday oo ay soo dhamaaday alxamdulillah 7 ahay rag iskuulka dhameeyay alxamdulillah maantana jaamacaddeeda maarta fadhiya waan la siyar gabagaba ahay hamigeygina maarta anaa jeclaa inaan macnaha maadadan barto wallahi horta alxamdulillah qofka bini aadanka haddii maskaxda ka xanuunsanay wax walba uu qaban karaa waayo haddii adiga wax isku taxalujido oo is dhiirigelido waa qaban kartaa ruuxa bini aadankaana wax walba qofku wuxuu ka naafo waa qalbiga laakiin aniga qalbiga ma sha Allah aan kahay waayo anaa isku taxalujiyo inaan maarta wax qabsado buugta qaato maarta qalinka wax ku qoro waayo hadafkeyga waxa ah inaan mustaqbal iyo maarta heer wanaagsan ka gaaro waxbarashadeeda waayo qofka bini aadanka ah waa maskaxda iyo qalbiga qofka bini aadankaana laba u qaybsama nin maarta sheeg waxna baran lixaadkiisa qaba laakiin waxna aan baran ninna jecel inuu wax barto soo lixaadkiisa qaba maanta taas marka aniga hamigeyga markay gaarsay inaan maarta wax barto dhalinyaro badan way igu dhiri jireen dhalinyaro badan maarta waxay dhigi jireen iyo anaga qalinka nacnay maarta sheeg ama awoodo weynay see maarta sheeg wax see u qori kartaa amal waxaan qof walba qalbigiisa iyo niyadiisa waaye marka aniga mustaqbalkay waxa way qalin inaan ku qoro waayo hamigeyga wuxuu ahay inaan maarta sheeg aan dhabar ka dhidine maskaxda aan ka dhidin. maamulka iyo macallimiinta jaamacaddiisa waxay qireen inuu ka dadaal badan yahay ardayda lixaadkoodu u dhameystiran yahay. Cabdirasaaq inuu yahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba marka laga soo tago awoodo kale oo badan ayuu Ilaahay siiyay isagoo aad u jeedaan labada gacmoodba inuu ka go'an yahay ayuu haddana marna ardayda kale ee gacmahooda iyo lugahooda qabta oo soo waxbarashada kaga hooseynin haddii ay noqoto imaanshaha iyo waqtiga xaadirtaanka klaaska haddii ay noqoto imtixaanada la galo wax walba oo la qabsanayo gacantiisa ku qortaa qalinkiisa awood Ilaahay maartay uu siiyay oo kale ayuu qalinkiisa maartay ku qabsanaya scientifically oo xisaabaadka laga shaqeynayo kaga shaqeynaya saaka ugu dambeysay maadada uu galay waa arkaysaa inuu maado xisaabaad ah oo maartay ay ahayd imtixaankiisa soo kaga shaqeystaa darajo ahaan kama liito ardayda kale oo ardayda dhibcaha ay keensadaan dhaxda uu kaga jiraa ardaydaas maartay jaamacadda dhigata ee klaaskiisa ayuu qayb ka yahay waa nin waxbarashada ku wanaagsan niyad fiican oo maartay badanna u haya marka waxaan u rajeynaynaa mar walba guul insha Allah. inkastoo ay sahlaneen isaga oo kale inay qaadaan agabyada waxbarashada sida buugaagta iyo kombiyuutarka haddana Cabdirasaaq midaasi qofna caawinaad kama weydiisto oo isaga ayaa iskaga filan. Mulki Cabdiraxiin Xasan, Muqdisho Cable TV, Muqdisho.